maanta waxaan jeclaystay inaan idila wadaago fiisaha Jarmalka lagu yimaado. Haddaba fiisaha lagu sheegayo waa kan waa midkan. fiisaha waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood, mid waa Besuchen midna waa international. Besuchen haddii aad markii kugu horeysay ee bartan hoylka shacabka YouTube aad soo boqoto waxaan ka codsanayaa qaybta hoose ee gududka subscribe-ka inoo riix si markii muuqaalada halkan aan soo dhigno ay toos kugu yimaadaan oo aad ka mid noqotay dadka ugu horeeya ee muuqaalada daawada. midka ah oo booqashada waaye tusaale kale qofka familkaaga ayaa ku soo booqanaya wadanku raba caalamka ka yimaado waxaad awoodaa in uu qofkaas ku yimaado haddii aad Jarmalka joogtid oo fiiso aad siisid. haddaba fiisaha Besuchenka muxuu yahay? marka ugu horeyso horta fiisaha waxa qofka la siinayaa 9 beri ayaa lagu siinayaa. midkan 9 beri ayaa lagu siinayaa booqashada ah, midka kalena waa isku mid asna 9 beri waaye, laakiin midkan asaga waa 9 beri. marka waxaad awood u leedahay oo laga rabaa haddii qofkaas uu ku imaanayo oo ku soo booqanayo in aad qofkaas noloshiisa aad kafaalo qaadi kartid, Verpflichtung aad sameyn kartid oo Erklärung aad sameyn kartid oo dawladda aad u sheegi kartid in qofkaas noloshiisa aad kafaalo qaadaysid 9kaas maalmood uu kula joogo. marka haddaba sidee ku kafaalo qaadaya? meeshan ayaan ka eegayaa Verpflichtungka lagu sheegay waa kan. waa Verpflichtung Erklärung. marka waa halkan. marka maxaa lagaaga baahan yahay? waxa lagaaga baahan yahay muhiimaddu waxay tahay in aad markii aad fiisa u xareynayso horta aad ballan dhigatid, magaaladaada aad ballan ka dhigatid, qaybta Rathaus-ka aad ballan ka dhigatid oo aad u tagtid una sheegtid in aad qofkan aad kafaalo qaadaysid noloshiisa 9 maalmoodna aad doonayso inuu ku soo booqdo. marka waxa lagaaga baahan yahay in aad marka Jarmalka horta wuxuu ku fiican yahay laguma dhahayo lacag waa inaa intaas haysataa si qofkan uu kuugu yimaado, laakiin kali ah koontadaada ayaa la kontroolayaa, waxa ku jira ayaana la eegayaa. marka waa in ay markaa ku filan tahay noloshaada, waxaad haysatid ay ku filan tahay adiga noloshaada iyo qofka ku imaanaya noloshiisa. marka runtii waa iska fududahay. haddii haddaba aad doonaysid in familkaaga aad halkan ku yimaadaan ama dad asxaab aad jeceshahay inaad casuuntid waad u sameyn kartaa. muhiim kali ah waxa ah inaad shaqaysid noloshaadana aad ku filan tahay. intaas haddaad samaysid oo aad ballan dhigatid, ballantaas markaad dhigatidna aad dawladda aad u sheegtid noloshaada iyo akoonkaaga waxaagay kontroolayaan waxaad haysatid 9kaas maalmood qofka haddaad kafaalo qaadi kartid waa kaas. xataa qaybahan hoose xataa waxa ku sii jira in haddii xataa qofkaas uu doonayo halkan inuu sii joogo xataa uu sii joogi karo, integration course xataa uu sameyn karo, koorsooyinka luqadda lagu barto xataa uu aadi karo. waxyaabo badan information ayaa ku jira, laakiin muhiimadda koowaad waa in horta qofku marka ugu horeyso uu yimaado. wixii kale waa wax laga wada tashan karo. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa.